dowladda Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigtay dowladda qaad sharci darro ah qodobkaasi waxa inoo haysa wariyahayaga Maryam Maxamed Cali Maryamaanka. Ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 27aad ayaa maanta tegida Ceel Macaan ee gobolka Shabeellada Dhexe ku qabtay dooni sidee qaad la sheegay in laga keenay dalka Itoobiya. Doonta sidee qaadka ayaa la sheegay inay soo martay xeebta Cadaale waxaana la sheegay in markii ay ku guuldareysatay in Cadaale ay ku dejiso qaadka ay waday ay soo aaday dhanka xeebta Ceel Macaan. Taliyaha qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Generaal Axmed Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in qaadka la doonayay in qaab sharci darro ah lagu soo geliyo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in qaadka ay maanta qabteen ay ku wareejiyeen ciidamada booliska Soomaaliya taas oo ay ku amreen madaxda dowladda si uu u sheego taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha Cabdullaahi Xasan Baariisi oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu digniin u dirayo ganacsatada Soomaaliyeed taas oo inaysan hantidooda iska gelin qaadka isla markaasina waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay mar walba la dagaalami doonaan cid kasta oo damacda inay dalka qaad soo geliyaan. Maryam Maxamed Cali, Radio Wadani TV.